السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kusoo dhawaada kanaalka Right Click Som magaciigu waa Master Click halkan waxaan kusoo gudbiyaa muuqaalo ku saabsan technology iyo isticmaalka aaladihii ugu dambeeyay muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa sida aad ciwaanka sare ku soo aragtay qaab fudud oo aad ku ogaan karto asxaabta aad ku leedahay WhatsApp meelaha ay kala joogaan iyo hadda meesha ay lugta dhigaan waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal dhamaantiin inaad muuqaalkan gaarsiisaan 100 likes sidoo kale haddii aad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir adigoo taabanay subscribe sidoo kale hana ilmaamin inaad furato kambalelka sifa aad ugu weerarshid muuqaal kasto aan soo dhigno daawasho wacan marka koowaad waxaa soo gashanaysaa application-kan kaga muuqdo shaashada mobilka application-kan magaciisa waxaa la What's Tracker haddii aad search ka dhahdo Play Store-ka kama helaysid waxaana ku soo bixi doono application badan oo ku magacaaban What's Tracker ma aha kuwa saxda ah kuwani waa fake marka application-ka saxda ah hal meel ayaad ka heli kartaa application-kaas linkiisa meesha ka heli kartid hoos ayaan ku reebayaa muuqaalkan description-kiisa ayaan ku reebayaa halkaas ayaad kala soo deegaysaa marka application-kan waa application-ka naga caawin doono inaan aragno dhammaan asxaabta aan ku leenahay WhatsApp meelaha ay kala joogaan iyo hadda meesha ay lugta dhigaan marka application-kan waad soo furanaysaa marka soo furato sida tan ayuu soo bixi doonaa marka waxa halkan kaaga soo muuqan doono ruleska mise shuruucda u dejisan application-kan marka aad dhameyso akhrinta ruleskan waxaad taabanaysaa meeshan ay ku qoran tahay agree and continue halkan hoose ayaad ka dooranaysaa sifa aad hore ugu socotid kadib halkan ayaa imaanaysaa waxaad ka dooranaysaa meeshan sare faladha hoose ayaa taabanaysaa kadib waxaad soo dooranaysaa wadanka aad joogtid hadda aniga halkan waxaan joogaa Kenya marka haddii aad rabtid inaad isku dhibin raadinta wadanka aad joogtid waxaad ku qoraysaa meeshan kore ay ku qoran tahay search aad ku qoraysaa wadanka aad joogtid xarafka uu ka bilowdo kaliya halkaas ayaad ka dooranaysaa marka aniga si automatic ay igu soo qabtay halkan hoose ayaa numberkeeda ku qorayaa waxaana laga rabaa numberka saxda ah aad ku isticmaasho WhatsApp inaad halkaas gelisid kadib waxa ku dhafanaysaa meesha ku qoran sign in halkan ayuu keeni doonaa waxaad ka dooranaysaa meesha ku qoran tahay allow waxaadna u allow garanaysaa permission-ka ha ahaato location and contacts kadib halkan ayaa imaanaysaa waxaad ka dooranaysaa meesha ku qoran tahay got it kadib waxaad ka sii dooranaysaa meeshan ku qoran tahay location tracker meeshan ayaad ku dhafanaysaa mar labaad ayaa ku sii dhafanaysaa wuxuu si automatic ah ku keenayaa halkan waxaad u furaysaa location-ka ayaad allow u dhahaysaa wuxuu si automatic ah u soo qaban doonaa dhammaan asxaabta aad ku leedahay WhatsApp meelaha ay kala joogaan wuxuuna kugu sheegayaa si qorma ahaane haddii aan fiirno qofkan ugu horeeya ee ku qoran tahay Kamaal Kacaaye waxa noo dhaxayso 246.12 kilomitir wuxuuna joogaa Kismaayo oo ku taasho Jubaland marka haddii aad rabto inaad u kala horeysiiso lab iyo dhadig waxaad ku dhafanaysaa meeshan yarta halkaas ayaad ku dhafanaysaa kadib wuxuu ku soo qaban doonaa sida tan haddii aad rabtid inaad meel wixii niman ah dhan aad kor soo mariso waxaad dooranaysaa meel haddii aad rabtid wixii female ah female ayaad dooranaysaa kaliya waxa masti ah inaad marka hore daawatid hal xayeysiis markaas ayaa lagu ogolaanayaa in ay kala horeeyaan marka ma daawana iska soo laameynaa dhammaan asxaabtan hadda loo soo saaray halkan aad rabtid meesha ay kala joogaan aad ka aragtid mapka waxaad ku dhafanaysaa halkaas sare wuxuu ku soo qaban doonaa si automatic ah halkan marka dhammaan waa kuwana meesha ay kala joogaan halkan aad ka arki kartaa waxaad saaraysaa labada far ayaa saaraysaa waadna soo dhaweynaysaa marka aad soo dhaweyso waxa halkan kaaga muuqato 8 iyo 2 8 isku meel ayay joogaan oo waxay joogaan Mogadishu ayay joogaan waa caasimadda Soomaaliya marka halkan ay joogaan way si kala baxayaan marka Muqdisho aad kor tagto way si kala baxayaan marka qof kasta meesha uu joogo halkan ayaad ka arki kartaa wadada uu joogo iyo inta inii dhaxayso kilomitir halkan ayaad ka arkaysaa magacana sidoo kale waad arki kartaa haddii aad ku dhufato qofka aad raadinaysid waad arkaysaa
sida halkan ka muuqato saddexdan qof isku meel ayay joogaan hadda marka saddexdan qof waxa u dhaxeeyo midkii waa 1 kiiloomitir ay u dhaxeeyo marka application-kan wuxuu awood u leeyahay inuu kuu sheego saddexda inta qof ee isku meel joogo inta kiiloomitir u dhaxayso hadda sida aad arkaysay saddexda qof ee isla joogay midkii waxa u dhaxeeyo 1 kiiloomitir waana ku ogaan kartaa asxaabtaada isku meel ka joogo inta kiiloomitir u dhaxayso haddaba si aad u ogaatay qofka meesha ku sii joogo waad soo dhawaysanaysaa adigoo saarayo mobilka labada far ayaa saaraysaa kadib gadaal ay u kala jiidaysaa marka qofka meesha uu ka joogo iyo wadada uu ku sii joogo waa lagu sheegayaa si halkan ka muuqato qofkan wuxuu joogaa hadda wadada 21 November ku tasho Muqdisho ku tasha sidoo kale degmooyinka iyo beerta nabadda halkan aan ka arkaa masjidka isbahaysiga degmada Xamar Jajab marka waad arki kartaa wax kasta oo ku saabsan magaalada Muqdisho marka adigana waxaan filayaa inaad ogaan karto dhammaan asxaabtaada meelaha ay kala joogaan haddaan in yar fiiriyo dhanka Kenya asxaabta aan ku leeyahay jooga ayagana halkan waxa ka muuqdo 5 marka way si kala bixi doonaan qofba meel ayuu joogaa mid hadda waxa uu joogaa Nairobi kuna wuxuu joogaa Thika marka kan labadan saddexda Nairobi joogta ayaan fiirinaynaa meesha ay ka kala joogaan waan soo dhawaysanaynaa markaan soo dhawaysano cabaar ayuu kaydin doonaa marka uu kaydino wadooyinkii ayaa soo bixi doono marka hadda qofkan wuxuu joogaa Isli ayuu joogaa wuxuu ka joogaa Fifth Street ayuu ka joogaa marka waxa iska fudud haddii aad muuqaalkan daawanayso waxaan filayaa inaad ogaan karto dhammaan asxaabta aad ku leedahay WhatsApp meelaha ay kala joogaan iyo hadba meesha ay lugta dhigaan waa qaab aad iyo aad u fudud haddii aad muuqaalkan daawanayso waad sameyn kartaa kaliya waxa u baahan tahay application-kaas sidaan hore idinku sheegay application-kaas linkigiisa waxaan idinku reebay dhanka description-ka ee hadda muuqaalkan aad daawanaysid waxaan ka codsanayaa mar labaad oo aan ku xasuusinayaa inaad kanaalka ku soo biirto oo subscribe inoo saarto sidoo kale gambaleelka furo si aad u noqotid daawadayaasha u horeeya ee mar kasta muuqaalka aan soo dhigno hana hilmaamin inaad like siiso daawasho wacan